tobabartan oo kulan lagaga hadlayay xog ururinta baahiyaha gobolka Gabiley ka jira 5 sano ee soo markaasina ay fulinaysay wasaaradda hoose degmada Gabiley oo ila shaqeynayay taariikhda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland tobabarkani oo socon doona muddo 4 cisho ah ayaa waxa kulankaasi ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Gabiley iyo sidoo kale shaqaalaha dawladda hoose ee haldoorka dhalinyarada gobolka Gabiley waxaana kulankaasi ka hadashay ugu horeynba suhuur oo ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha tobabarkani ka warbixisay iyo xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Gabiley Abdurrahmaan Nuur Abakar agaasimaha qorsheynta dawladda hoose iyo sidoo kale Maxamed Cabdi Xasan la taliyaha dawladda hoose arrimaha GBLG-ga iyagoo halkaasina ay ka warameen ujeedada kulankani maanta loo qabtay shaqadana maanta koo ah waxaan rajayn doonaa shaqadan oo tababarkii maanta haduu bilaabay 4 cisho socon doona in si fiican ay ugu dhamaan doonto waxaha ku qoran ee clusterska loo soo doortayna in si fiican loo wada tago laga soo wada shaqeeyo waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa xildhibaanada sida wanaagsan ee hufan oo la shaqeynaya dalka ugu horeeyo kulan kamida kulamadii mashruuca GBLG-ga gaar ahaan kulankii ku saabsanaa sidii loo sameyn lahaa qorshaha horumarinta ee degmada ee shaqada dabeecad u lahayn gaarsiiyo kulli waxa tiimid ku hawlweynaadii oo ka kooban xildhibaanadii golaha deegaanka shaqaalihii dawladda hoose iyo shakhsiyaadka aqoonta ahaayeen ee bulshada ka socday marka waxa kulankan hirgelinaya wasaaradda arrimaha gudaha oo kaashanaysa dawladda hoose ee degmada Gabiley kabacdi inta marka la dhaafo kulli waxaynu wixii aanay xog ururina data collection ki DDF sidii loo sameyn lahaa waxaanu kulli dhowr cisho 3 cisho ayaan kan tababar ku geli doonaa 4 cisho tababar ku geli doonaa marka waxa leeyahay kulan ujeedadani shirka maanta oo ku salaysnaa qorshaha 5 sano degmada Gabiley waxaan ayada quraanka ku bilaabay koobaad inaad si wanaagsan aad u qaadataan tababarkaasi inta casharada idin socdaan aydan ka bixinayeen koobtana tababar ku qaadanayno oo qof waliba qalbigiisa iyo niyadiisa uu soo jeediyo tababarka uu qaadanayo si aanu u kharibin ama aanu u xumaynin mustaqbalka Gabiley way maanta markay bilaabanto sanadkan sanadka dambe waxa loo baahan yahay in laga soo saaro wixii aad soo ururseen wixii degmada laga qabanayay oo baahida ka soo baxdo oo priority la kala qaato maanta awood bay noo helnay sanad markuu 2012 markii la soo diyaarinayay waxa hay'adda UNICEF bana hawshaasi waday hay'adda naga caawinaysa laakiin shan waan jirsanay maanta 5 sanadood baa dhamaad inay Gabiley baahideedii iyadu soo urursan karto oo iyadu keensan karto oo district profile-keedii iyo qorshaheedii iyo wixii ay sameeysanayso ayaan maanta aynu capacity-gaas naga marka hadaba hawshaasi ha noqoto qurux badan waxaynu maanta isku nimid waa qorshihii 5 sano ee gobolkeena Gabiley waxaan jecelnahay inuu Ilaahay si fiican inoo waafajiyo macluumaadka aynu degmooyinkeena iyo ka soo ururinayna aynu Ilaahay ku anfaco gobolkeena ka soo baxana insha Allah kiina anfaca Allah ka dhigo midun baan raacayayo Ilaahay horta waxa weeyaan waxa weeyaan wax cilmiga halka ka soo baxay wixii commission ee qof walba waxa ay ka diyaarinayo waxa ay kula dardaarmi lahaa inaydan wixii aad faa'iideysan kartaan qayarsan qorshahana kiyiina iyo hamigiina ay ku jirto inaanay maanta ahayn adduunyadu maxaad ka tagaysaa oo midka aan idin kula dardaarmay ee ay nagu la dardaarmeen ay u yeesheen midaasi waa mid inaan facaysa aan maanta diyaar u nahay inaynu district profile-kii degmada 5 sano soo socda inuu dhigno districtgaas waxyaalo badan baahiyooyin ka mudanay ku jira meesha degmadeena in tuulo walba ogaano maxaa baahiyo yaala inaan ka baaraandegno runtii qorshe muddo 5 sano ah sidee aynu uga hawlgeli lahayn waxay noo soo dhamaaday 5 sano hore runtii aan ku nasiib fiicnayno wax badan ay noo hirgaleen imikana 2018 ilaa 2022 ayaynu doonaynaa inaynu qorsheyno iyo waalmay sida wala ka haro runtii aad baan ugu mahadnaqayaa wasaaradda arrimaha gudaha waa Nimcaan Dheeg Ibraahim TV qaranka Gabiley.